waa dareemayaa marka habeenka siiba aan sariirta seexdo gacanta saaro qaybta ku soo dhawaada channelkayga dadkii ugu cusub iyo dadkii hore la socday dhammaan soo dhawaada mahadsantihiin okay waxaan ka hadlayaa weekan oo aan soo dhameysto oo ah 17 weeks berin waxaan galayaa 18 weeks marka weekan soo dhameysto waxyaalaha la kulmay dhan aan hadda ka hadli doonaa ku soo dhawaada okay horta hore 13 weeks markaan ahay xoogaa waxaan dareemayaa wax yaroo inuu cunugana nuuxsanayo laakiin shaki iga jiray marka inaan ka hadlo ma rabin because maan hubin laakiin hadda 17 weeks ahay waa inuu cunuga yahay cunugan dhaqdhaqaaqayo sida waxaad dareemaysaa neef kugu socotoo kale meesha qaskaada iyo xoogaa qaska korkiis meelahaas waa dareemayaa marka habeenka siiba aan sariirta seexdo gacanta saaro waxaan dareemayaa inuu cunuga socdo marka waa arin cusub oo hadda macnaha si fiican awal shaki iga jiray laakiin si fiican u dareemayo marka 17 weeks ahay marka waxa la dhahaa hooyooyinka qaar oo hore u soo dhalay iyo cunuga dareemaan hooyooyinka hore u soo dhalin ilaa 22 week meelahaas ku dareemaan cunuga aniga hore waa u soo dhalay qasab ma aan hooyooyin waa jira iyaga hore u soo dhalay cunuga dareemin waqtigan oo kale ani laakiin 17 weeks waa ku dareemay 13 weeks wax waa dareemay laakiin shaki iga jiray laakiin hadda waa inuu cunuga yahay ma fahamtay habeen walba macnaha markaan sariirta seexdo aan dareemayo marka ma ahayn wax hal mar la aan isku arkay ama laba mar marka waa arin oo macnaha igu soo kordhay xagga jirkeyga marka waxaan dareemay cunuga dhaqdhaqaaqiisa iyo waxaan kaloo dareemay jir xanuun waxaan kaloo dareemay madax xanuun kaloo oon dareemay caloosha ina xoqo aan bilaabo waxa mala caloosha weynaanayso marka maqaarka si kala baxayo marka sidaas darteeda waxaan bilaabay inaan marsado saliid qumbo habeen walba markaan quweysto jirkeyga dhan saliid qumbo ku wada dhooba kareen oo loogu talagalaa ii soo socdo gabar saaxiibta ii soo dirtay kaasna inaan isticmaalaa rabaa marka haddii lacala adiga oo xoqitaan iyo caloosha aa bilowday waxaan ku dhihi lahay gacmaha gloves iska gisho marka hadda calooshaad xoqaysid oo aa iscelin karin si cindiyahaada macnaha ay u gelin maqaarkaaga marka wax gasho iska xijiyo cindiyahaada ka qari macnaha markaa xoqaysa calooshaan taasa isku arkay intaas ay igu soo kordhay xagga jirka karaal ahaad haddaa booq iyo sharqan maqlaysin ciyaalka ila joogo marka raal ahaada marka xagga jirka halaasaan la soo kulmay oo aan dareemay mideeda kale 19 markaan galo waxaa la saaraa ultrasound kale oo caafimaadka cunuga la fiirinayo markaasna waa markaan ogaanayo wiil ama gabar waxaan wado marka taasna waa niisoo sheegi doonaa wili waa xoogaa waqtiga ka haray okay jirka halaasaan dareemay waxaa kaloo ku xigo xag cuntada okay aan iska ahay hadda waxaan cunay waan ku bilowday oo aan soo gelin doonaa oo iga haysay Greek foodka waa idin tusaya sida uu egyahay waxaan cunay oo kale tacos waa idin soo gelinaa waxaasoo dhan bariisi baasto waa iska kasaysin cunto Soomaali ukun aan ku quraacana iyo mashaari oo si fiican loo kariyay day maahan tii hore oo kale oo qaleelka ahayd mashaari aan cunay iyo waxaan kaloo cunay rooti smaris ah marka halaasa cunay weekan waxyaalaha aan haayo oo cuntooyinka kale waa idin soo gelinaya marka hadii aad cusubta walac kugu jiro oo cunto aad arki karin indhahaada hadda ka qarso cuntooyinka aan haayo sawiro ama video ay idin soo gelinaya waa kana fiirsada maanta waxa la soo gaday Greek food ee iga qabatay magaalo 2 saac noo jirto la iga soo gaday marka saana u egtay waa bariiskii qudaartii bataati iyo
صوص ير للسعود هيلب كي كانوا اسكا كسيسين يا عادي ما أهم انتظرنا السوق يسمعان اوكي مرمر سؤالها قبل اسوي ديان waxaa laga yaabaa inaan ka mashquulo aan ka soo jawaabin laakiin markaan aan waqti helo aan sida ugu jawaab aan arka gabdho kale u jawaabo waan ku farxaa aad u maasantiin aan saas u kala faa'iideysano saas ugu faa'iideyno gabdho hoos ka soo qora duudeedkiina waqtiga dhalaysiin si aad u aragtiin gabdhaha kale inaa isku waqtitiin ama inaa kala duwantiin ama inaa kala fogtiin meelaha kala maraysiin inaa ogaado iska rabaa aniga waxaan dhalayaa March 13 2021 aan lagu qiyaasay waqtigaas inuu cunug imaanayo oo ka soo hormari kara oo ka dib dhici kara laakiin waqtiyadaas aan leedahay seventeen weeks waa kana caloosheeda halee la eg tahay waa kaas mahadsantihiin waa kasaysiin qaabka youtube-ka u shaqeeyo comment like subscribe and share marka idinka meeshiina kasii wada ana meeshaan kasii wadaya see you next time xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan